السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داودي ميل ولا نقدر داون سامبا كسر دوادا مركل يا channel كيني عالمي ها رشيد بارع تي في هلكن نقرأ سعوتان طبعا waxaan idin leenahay hay'ashee flowriskow inta aan faalada ku furfurno ujeedada warka aan falanqayn fariin yar oo qurxoon fudeydkeeda yaabtaan ku soo fasaxayaa fiirso oo dhageyso fideogaygan qaado like-da iyo follow-da ku fogeeyo share-to comment-ga ku faalooda fariintaada noo reeb askar fiirsan muuqeen maanta insha Allah ta'ala barnaamijkan qubanaha hay Rashid Barcad ee kala socoteen channel-ka Rashid Barcad TV maanta insha Allah ta'ala uu yirdo istaagi doona safarka la sheegay madaxweynaha Soomaaliland mudane Biixi uu ku iman doono magaalada Berbera ee gobolka Saaxil dabcan ay kala soo hadlaya hadeertana dhex joogaba madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa inuu toddobaadkan makiinoo bilaabmay gudihiisa maanta sabtixad uu baaqday laakiin xadda iyo wixii ka dambeeyay inuu soo gaaro magaalada Berbera waa safar halkan uga bilaabmaya dabcan oo uu ku soo marmarayo gobolada bariga Soomaaliland qaar kamid ah madaxweynaha halkan safarkiisa dabcan ka bilaabay hore waxa loo sheegay madaxweynuhu toddobaadkii hore doonayay inuu yimaado hay'ashee mushkilad yar oo ka qabsatay xagga soo dhaweynta shaqo noocaas uu la joogay waayo madaxweynaha dadka deegaankuna hadeertan mucaaradad xoogan ayuu kala kulmay waagi hore waxa la yaqaanay Berbera in 100% ay tahay muxaafid laakiin imaka xaaladdu saa way ka duwan tahay dabcan dadkan deegaankan dad baraarugay bay weegyihiin oo waxa ka xoroobay iyo magaranaysaa ismakeekiya iyo magaranaysaa afka macaanay inta badan lagu maalo dadkan halkan hadeer waxay istuseen inay yihiin dad xora oo dabcan iyagu aragtidooda cabiri kara oo aragtidooda ku meel mari kara codkooda iyo furtoodana wax u goyso 7 sano uu joogay halkan madaxtooyada oo madaxweynaha halkan gobolka waxa laaliyo wuxuu gashaday oo dadka deegaanka ay maanta u hayaan ma jirto si uu hadalka u dhigin weeyaan cabasho xoogan ay dabcan ka qabaan waxay leeyihiin madaxweynuhu sidii aan ugu lisnayn ugu muhambayn lama shidada saaciiduhu ramaan soo maqal jir mahmaad oo jirtay istaan kugu lisay ugu hambayn taas haysata markaa ilaa bariyahanba toddobaadka hore waxa uu baaqday ilaa maalinka maanta ilaa maalmahanba waxa la qaban qaabiliyo la isku dibirday madaxweynaha sidii loo soo dhaweyn lahaa ama sidii deegaanka looga heli lahaa dad soo dhaweeyo oo mashxarado sacabka u tumo meelaha laakiin dad badan oo deegaanka iyo gobolka kamid waxay u diyaarsadeen inay kabo ku soo dhaweeyaan kabo ku salaamaan doorkan maanta xaaladdu say doonto ma noqotay wada fadhi situation restaurant waxa la wixii ka imanaya ka yimaadaan markaas dabcan madaxweynuhu qodiisu waa og yahay oo deegaanadu sidoo hore ku soo talagelayno hadeer halkan wax xoogaa kala kulmayo uu og yahay soo dhaweyn la'aana marka maalinta bariyayo wixii ka dambeeya laga yaabo inuu halkan soo gaaro oo safarka halkan uga bilaabmo kadibna uu magaranaysa xagga bariga u dhaafo insha Allah ta'ala way idin soo tabin doonaa waxa uu kala kulmi doono iyo si loo soo dhaweeyo iyo dabcan sida uu wuxuu ka hadli doono iyo waxa uu deegaankan hadeertano oo lagu jiro maadaama doorashadii wax 9 maalmood ka hareen oo safarkiisana wuxuu muuqdaa mid ololaah marka ololaha halkan waxay dadku xilaahdaan anagu ku joor horaan ku ololaynay waxa la waxaan ku haynaana ma jirto doorkan maanta cid kale oo waxaan la qaybsan karno wax ku darsan karno waan la xisaabtan karno ololaynay adigu banaanka naga mar hay'asheen daadkantiis buu ku soo socdaa kulli uu ku soo maqiiqan yahay insha Allah ta'ala way idin soo socotiin doona wixii kolba ka soo kordha bartana insha Allah ta'ala kala soo doonta Rashid Barcad TV hamogaanina dabcan oo ka warhaya oo like-da iyo follow-da iyo share-ta iyo comment-ga intaba inoogu amray insha Allah ta'ala waa ku mahadsantiin meel kasta joogtaanba assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh